بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم walaalahay meel kasta joogtaan welcome back to my youtube channel maanta iyo video cusub maaska timaha oo cajiib ah maasha allah waxaan u marinayaa gabadheyda timahana maasha allah tabaaraka allah wada kaga dhigaya hadduu ilaahay yiraahdo ka faa'iideysta janaalkan waa janaalkiinii hadduu ilaahay yiraahdo martima tihiin afjoogana looma adeegaan lahay marka abay shukru inay soo hadasho way ku qasban tahay marka waxaan idinka codsanayaa janaalka inaad kor u qaadaan hadduu ilaahay yiraahdo insha allah waa janaalkiinii waa janaalkii walaasheen shukri soom maanta iyo video cusub maaska madaxa oo nafaqa ah maasha allah timaha kuu bixinaya hadduu ilaahay yiraahdo ka faa'iideyso isbuuciiba hal mar marsan insha allah haddaa rabta timahaada inay tayo fiican yeeshaan ay ku dheerdheeraadaan insha allah oo maaragtay jajabka iyo ay ka baxaan insha allah borotiin waaye insha allah borotiinkeena wuxuu ka kooban yahay bismillaah calaa barakatillah waxaan soo qaatay qallaato amba baaquli waxay rabtaa soo qaadan kartaa amba magsar waxaan ku riday 2 xabo ukun ah ukunta haddaa rabtidna maaragtay jaallaha keligiis waa isticmaali kartaa haddaa rabtidna maaragtay cadaanka iyo jaallahaba waa ku darsan kartaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo intaas labadaas xabo ukuntaas isku qasaaya hadduu ilaahay yiraahdo haddaa rabtid fargeeta ku samayn kartaa wax mashaakila ma leh markaan saas iskugu qaso insha allah waxyaabaha kale ku dari doonana waa isla arki doontiin insha allah ilaa hal saac camal ana madaxa ku haynaysaa kadibna maasha allah madaxaada duuba shaambo dabiiciyan wuu noqonaya uma baahnid shaambo leh madaxa ku dhaqaysaa duuba shaambada maalintaas waa ka kaaftoomaysa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan kaloo ku darayaa tumin oo saliid saytuun ah olive oil aan ku darayaa insha allah nuuna yariisaan u marinaya insha allah timaha hadduu ilaahay yiraahdo gabadheeda yartaha u marinaya maasha allah timahana sidooda maaragtay in lagu dadaalo waaye gacan ku hayn waaye haddaadna gacanta ku haynin waxa kuu shaqeynaya ma jiraan haddana special ilmaha haddii maaragtay ay yaryar yihiin timaha maaragtay haddii markasta loo hagaajiyo loo sameeyo aflaaqada laga gooyo maasha allah timaha way u baxayaan timahana sidoodaba amba jileec ha noqdaan amba adeeg ha noqdaan maasha allah dad timahooda adeeg yihiin waxaa arkaysaa timo dheerdheer qabo dad timahooda jilcan yihiin timahooda yaryar yihiin marka ma ku xirna xataa jileec iyo adeeg waxay ku xiran tahay wixii ilaahay ku siiyey maasha allah inay hagaagsatid oo samaysid oo u dabtid one day iyo waxaa arkay u baxeen maasha allah haddana waxaan ku darayaa malabkana maasha allah timaha maaragtay cuncun hadduu leeyahay iltihaabaad uu leeyahay madaxa maqaarka oo timaha wuu u fiican yahay timahana maaragtay wuu ku jilcinayaa insha allah haddana waxaan kaloo ku darayaa jojoba oil ku darayaa iyo waxaan kaloo ku darayaa iyo castor oil jojoba oilka waa taasaa haddana castor oil waaye inkastoo maaragtay midda oo wadanka oo ugu fiican castor oilka waxaa ugu fiican aanan haysanin midaas iga dhamaatay tan noocan kaleetaan hele laakiin hadda ima cajabin waxaa waaye castor oilka oo jamaicanka fiican oo original ah oo ka adag haddee tan kale waxaan kaloo ku darayaa insha allah intaasaan isku qasaaya haddii ilaahay yiraahdo waxaan kaloo ku darayaa hal qaando oo bariis soo shiiday amba haddaa bariis haysanin waxaa ku dari kartaa hal qaando oo maaragtay waraanka ah bariiskana maasha allah timaha ka dhigaya waraangadana sidoo kale laakiin waraangada aniga ma jecla bisaraaxa waxaa ka fiican bariiska because waxay dhan aad qastay oo dhan waxay noqonayaan biyo si u adkaadaan isku qabsadaan maaragtay maasha allah inaa bariiska lagu daraa fiican bariiskana timaha wuu bixiyaa timahana wuu u fiican yahay special biyihiisa wax kasta waa la baroobayaa laakiin wax one day maaragtay waxba lagama faa'iidayo markay maaragtay ilaa dhowr ilaa waxaan wax dabiici waaye side effect ma lahan
oo malahan yani waxyaabo oo timahaada dhib u geysanaya malahan. laakiin ilaa 3 bilood markaa waxa baroobaysid oo isbuuci 2 mar barsatid amba hal mar maybe inaad natiijo ka dareentid. sometimes waxaa dhici karta 2 asbuuc hadaa marsatid maasha allah timahaada haday rifrif lahaayeen badan tima jajabsan tima kaa daadanaya inaan wax ka faa'iidid. laakiin waxaan ka wadaa wixii waxba dabiici haddayna kiimika ku jirin waxa fiican qofka inuu maaragtay istimraar uu sameeyo yani continue uu isgareeyo uu maalinba wax cusub uu ku siyaadiyo uu arko markaas timihiisa maaragtay wixii uu shaqayn doono insha allah. waxaan soo qaatay baaquligaasaan ku shuba saas uu noqday maasha allah sida kareem oo kala duwan shaamba camal uu noqday. ilaa 1 saac 2 saac waa ku hayn kartaa timaha hadduu ilaahay yiraahdo bacda maaragtay oo musqusha oo lagu qubaysto oo shaawarka hadaa haysatid. essential oilkana maasha allah noocyo badan ay ku imaataa lavender waaye insha allah lavenderkana maasha allah timaha wuu u fiican yahay wuuna soo carfaya maasha allah tabaarakallah. maarkin shaawarka oo kale hadaa qaadanaysid oo kale oo braagti biyaha lagu shubto oo kale waa ku darsan kartaa labadaba dhibcooda ku daraaya because wuu adeegyahay wax badan lagama isticmaali karo. waa isku qasaya insha allah kadibna nuunada yartaa timaha u marinaa maasha allah markaan ka dhaqo oo u dabana say noqoto waa arki doontiin hadduu ilaahay yiraahdo. janaalka waa janaalkiina insha allah subscribe saara like saara share gareey fiidiyoga insha allah. soomaaliya ku garab istaagta koley ajaanibka way iscaawiyaan annaga maxaa naga maqan waxma leemaho marka insha allah walaalahay kuwa kale faa'iido qeyb iskugu imaado ilaahay ha naga dhigo. marka af jooga looma adeegaa la dhahay soomaali qof naga xigta ma jirto mutarjamna uma baahnin maasha allah afkeenaa ku hadlaynaa luqadeynaa ku hadlaynaa waxaan aqaana idinla soo wadaagaya waxa wax ka istafiidin insha allah oo maaragtay annagana aan baroobeeyey oo idinla soo wadaagi doono insha allah. wixii aniga aan ii cajabinna maba ii cajabin maho maba ii shaqaynin marka insha allah meel kastaa joogtiin sidaan iyo mar kale aan ku kulmayno fiideo cusub walaalahay waxaan kaaga tagayaa fi amaanillah. asalaamu calaykum.